በእውነት በመጀመሪያ ጊዜ በምዕራብ ሐረርጌ በኦሮሚያ ክልል ውስጥ የተፈጠረውን በሶማሌ ላይ የተፈጠረውን የጅምላ ጭፍጨፋ madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar oo shir saxaafadeed ballaaran ugu qabtay qaybaha warbaahinta dalka isla markaana ay su'aalo ka weydiiyeen xaaladda deegaanka gaar ahaan xasuuq wadareedkii dadkii Soomaalida loogu geystay galbeedka Hararge ee deegaanka Oromada xaaladda barakacayaasha labada deegaan iyo guud ahaanba isbedelada horumarineed nabadgelyo iyo maamulka suuban ayaa ugu horeyn u tacsiideeyay guud ahaanba shacabka Soomaalida gaar ahaan eheladii iyo qaraabadii dadkii Soomaalida ahaa ee sida arxandarrada loogu xasuuqay bartamaha deegaanka Oromada wuxuuna madaxweynuhu Ilaahay uga baryay inuu jannatul firdaws ka waraabiyo inagana samriye naga siiyo qoysaska ay ka baxeen uu badal khayr qabo siiyo የተከሰቱ ግጭቶች የሰው ህይወትና ንብረትን ወድሟል madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar ay warbaahinta dalku wax ka weydiisay xasuuq wadareedkii ka dhacay galbeedka Hararge iyo kaalinta waxqabadka ee xukuumadda deegaanka ka geysatay ayaa wuxuu sheegay in xukuumadda deegaanka Soomaalidu markii ugu horeysay heshay xogta dhabta ah ee jiritaanka xasuuqa iyo sida uu dhacay kadibna waxay xogtaas rasmiga ah u gudbisay dawladda federaalka iyo laamaha amniga ee ay khusayso si ay wax uga qabtaan haddaba xukuumadda federaalka oo ka duulayso xogtii deegaanka ayaa waxay amartay in la badbaadiyo shacabka intii hadhay waxaana sida goobtii ku aaday ciidamada difaaca qaranka oo xaqiiqiyan intay wadada ku sii jireen ay caqabado dagaal iyo jidgooyaha la kulmayeen iyadoo oo runtii haddii aysan ciidamada difaaca qaranku tagi lahayn uu xasuuqu inta ka sii badan lahaa maadaama uu ciidanku badbaadiyay kun qof oo u xidhnayd in birta laga aslo tiritaanka uu ciidanka qaranku tagay goobta kadibna waxay xukuumadda deegaanku ay geed dheer iyo mid gaabanba u fooshay inay hesho godkii lagu uustugay dadkii Soomaalida ahaa ee la xasuuqay ama lagu qariyay dadaal dheer kadibse waxay xukuumadda deegaanku ku guuleysatay xogta godkii dadka lagu usxabaalay inay hesho waxayna u gudbisay markiiba dawladda federaalka laba goobood oo laga baaray kadibna waxa godkii laga helay meesha ay xukuumadda deegaanka Soomaalida Itoobiya tilmaanta ku bixisay hubaalsi muran badan ayaa ka jiray xaqiiqada arrintan oo dad badan ayaa beeninayay iyadoo ay qaar ka mid ah hogaaminta deegaanka Oromada gaar ahaan hogaaminta gobolka galbeedka Hararge ay isku dayayeen inay dawladda federaalka ka dhaadhiciyaan in xasuuqan uusan waxba ka jirin oo iska badaa xasuuqa aan waxba la dilin haddaba xukuumadda federaalka oo ka duulayso xogtii deegaanka Soomaalidu siisay barbar dhigaysana tan deegaanka Oromada ee dhahaysa xasuuq ma jiro isla markaana xoga ay ka dawlad federaal ahaan haysa ku xisaabtamaysa ayaa go'aamisay in 7 bishan Taasaas 2010 tiris taariikheedka dalkeena Itoobiya in wafdi EPRDF oo dhan ka kooban ay goobta tagaan baaritaan iyo qoditaan la sameeyo madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar ayaana tilmaamay xasuuqan inay aad uga naxeen maadaama dadaan af Soomaaliga xataa garanaynin oo isir ahaan Soomaali ka soo jeeda oo caruur iyo maati isugu jira la xasuuqay isagoo sidoo kalena madaxweynuhu sheegay inay guul ahayd in la helo godkii dadka lagu uustugay isla markaana la soo saaray meedadka dadka 8 bishan Taasaas 2010 tiris taariikheedka dalkeena Itoobiya maadaama oo ay aaseen si sharciga islaamka ka baxsan oo ay rag iyo dumarba hal god ku wada aaseen soo saaris kadibna waxa galinkii dambe isla maalintaas sharciga islaamku waafaqsan loogu aasay xabaalo loo qoday madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar ayaana dhacdada ku tilmaamay mid fashilisa qorshihii ay dadka argagixisada ah ee xasuuqan geysay ay ku rabeen inuu u noqdo mid u hurgala balse ay xukuumadda deegaanku jiif iyo joogba u diiday in qorshaha argagixisadu hirgalo ayna dadaal dheer kadib banaanka keentay qorshihii ay damacsanaayeen shakhsiyaadkii argagixisada ah ee xasuuqan soo maleegay iyadoo ugu dambeyntiina dawladda federaalka deegaanka Oromada iyo beesha caalamku ay ka maqraati kaceen taasina ay ku timid dadaalkii dheeraay ee xukuumadda deegaanka Soomaalida Itoobiya u gashay sidii xasuuqan banaanka ay u keeni lahayd madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar ayaana shaqooyinkii dawladda federaalku ka qabatay ku tilmaamay ficil wanaagsan የተፈናቀሉ ሁለት ኢትዮጵያዊ ወገኖች ናቸው madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar oo ka hadlay arrinta barakacayaasha labada deegaan ayaa sheegay dadka barakacayaasha ah ee Oromada iyo Soomaalida ay yihiin muwaadiniin Itoobiyaan ayna u baahan yihiin in loo caawiyo si siman oo aysan ahayn in mid si gaar ah wax loo siiyo ama loo eego maadaama ay labadaba barakacayaal yihiin si loo sii adkeeyo dhismaha bulshada dhaqan dhaqaale leh iyo nidaamka federalismka oo ay gundhigu yihiin qoomiyadaha iyo shucuubaha dalkeena Itoobiya wuxuuna madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar cadeeyay in dadka hay'adaha federaalka ka shaqeeya looga baahan yahay inay si siman u caawiyaan dadka barakacayaasha ah isagoo carabka ku adkeeyay haddii mid kamid ah si gaar ah loo caawiyo ama loogu hadlo ay xumeynayso nidaamka federalismka ee nabad ku wada noolaanshaha shucuubaha iyo qoomiyadaha Itoobiya tusaalena u soo qaatay haddii ay hay'adaha federaalka ay hal riyaal siiyaan barakacayaasha Oromada ay waajib ku tahay
inay si la mid ah barakacayaasha Soomaalida u siiyaan maadaama ay labaduba yihiin muwaadiniin xuquuq siman leh. madaxweynuhu hadalkiisa sii wata ayaa tilmaamay si loo sii xoojiyo bulsho hal siyaasad dhaqan dhaqaale leh iyo adkeynta nidaamka federalismka iyo dastuurka dalka ay tahay in si siman loo eego shacabka dhibaataysan ee labada deegaan. መጀመሪያ ደረጃ መታወቅ ያለበት እኛ ከሌሎች ክልል የተለየ የጸጥታ መዋቅር የለንም። madaxweyne cabdi maxamuud cumar oo wax laga weydiiyay xaaladda ciidanka liibi booliska ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa dadka ka been abuuranaya ciidanka xooga gaarka ah ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya uga digay inay ka dhowrsadaan been abuurka malaawaalka ah ee aan sal iyo raad toona lahayn. sheegay in ciidamada liibi booliska ayna ku aasaasnayn qaab dhismeed ka duwan qaab dhismeedka dawladdeegaanada kale ee dalka balse ay la mid yihiin isla markaana uu ciidanka liibi boolisku yahay booliska deegaanka. wuxuuna madaxweyne cabdi maxamuud cumar dib u milicsaday taariikhdii nabadgelyo darre ee deegaanka ka jirtay laga soo bilaabo 1964 tirsiga Yurub isagoo oo sheegay in deegaanku uu ahaa deegaan ay ku hardamayaan ururo siyaasad guracan oo gaar ah watay sida ururadii xagjirka nabadiidka iyo fikradda Soomaaliyeed watay. wuxuuna madaxweynuhu xusay in haddii liibi boolis la soo hadal qaado ay nagu celinayso inaan ka soo sheekayno taariikh dheer oo deegaanku nabadgelyo darre ku soo maray oo aysan u qalmin in taariikhda liibi booliska laga xiriiriyo isku dhac yar oo u dhaxeeya laba qowmiyadood maadaama ay ka dhigeen deegaanka Soomaalida Itoobiya oo ah deegaan Itoobiya oo dhan cabsi geliyay isla markaana ay Soomaali weyn sheegan jirtay. wuxuuna madaxweyne cabdi maxamuud cumar tusaale u soo qaatay in dagaalkii Itoobiya iyo Soomaaliya uu ka dhashay deegaanka Soomaalida sidaas awgeedna ay Soomaaliya muddo yar oo 7 bilood xoog ku haysatay. madaxweyne cabdi maxamuud cumar ayaa xusay in dagaalkaas kadib ilaa 1964 ay ururadii siyaasadeed ee deegaanka ka dhaqaaqi jiray xilliyadii boqortooyada dhargigii iyo xilligii Itoobiyada cusub deegaanka u horseeday ay u hanqaltaagaan inay goostaan iyo inay ku daraan Soomaaliya. dhibaatadaasina way sii jirtay laga soo bilaabo 1964 ilaa xilli dhow oo ku beegan 2000 taariikheedka dalkeena Itoobiya iyagoo ururadii nabadiidka ee ka dhaqaaqi jiray deegaanka ay u geysan jireen tacadiyo ba'an iyo xasuuqyo ka dhan ah bini'aadamka. dhargiguna la mid ayuu ahaa duulaankii Soomaaliyana uu ka sii daraa. sidaas darteed madaxweyne cabdi maxamuud cumar ayaa ku tilmaamay taariikhda nabadgelyada deegaanka mid murugo iyo calool xumo lahayd. dhanka kalena madaxweynaha ayaa sheegay in xilligii EPRDF soo gashay Itoobiyada cusub dhalatay in deegaanka ay dib uga abuurmeen ururo nabadiid ah oo ay ka mid ahaayeen UBA Itixaad Onag iyo Al-Shabaab oo deegaanku maran u ahaan jiray si ay huba Itoobiya ku dumiyaan uga la soo degaan. iyadoo madaxweynuhu cadeeyay in jabhadihii Onag ay deegaanka u isticmaali jireen meel ay hubka iyo xubnahooda hubaysan kala soo degaan. halkaana waxaa kaaga cad inuu qayb libax deegaanka Soomaalida Itoobiya ka qaatay in kastoo deegaanku hay u ahaan jiray ONLF Al-Itixaad Al-Shabaab iyo fikraddii Soomaali weyn oo gabi ahaanba ka soo horjeeday Itoobiya. madaxweyne cabdi maxamuud cumar oo hadalkiisa sii wata ayaa xaqiijiyay in xataa calanka deegaanka Soomaalida Itoobiya ay ku taalay astaanta calanka Soomaaliya balse calanka saxda ah ee deegaanka la sameeyay 2001 taariikheedka dalka Itoobiya iyo sidoo kale buugaagta waxbarashada ee dugsiyada hoose iyo dhexe ay ku qornaan jireen waxyaabo midnimada qoomiyadaha iyo shucuubaha Itoobiya burburinaya sidoo kalena carruurta la bari jiray casharo Itoobiyaanimada lid ku ah. dhanka kalena madaxweynaha ayaa carabka ku dhuftay in ardada deegaanka ay ka soo qalin jabisay jaamacadaha dalka ay ku biiri jireen cadowga maadaama oo cadownimada Itoobiya lagu soo barbaariyay isagoo madaxweynuhu cadeeyay in xaaladda nabadgelyada deegaanku ay ahaan jirtay mid aysan degmo u gudbi jirin gobolna gobol u gudbi jirin gurina guri uusan u gudbi jirin oo haddii ay isu gudbaan oo ciidanka qaranku ajaabahan u raaci jiray. geeska kale madaxweyne cabdi maxamuud cumar ayaa sheegay in xilliga uu nabadiidku intuu ciidanka qaranka u soo ekaysiiyo uu shacabka gumaadi jiray isla markaana intay doobaan iyagoo la fahaantoodu leynaya caalamka u tusi jireen in Itoobiya ay leynayso taasoo kaleftay in deegaanku uu noqdo meel dadka hilibkiisa lagu cuno. wuxuuna madaxweynuhu sheegay in 1998 ay dhammaan dhacdooyinkaas foosho xubin keeneen in hay'adaha caalamka dawladaha kale iyo dawladda federaalku ay ka doodaan laba go'aan oo ah in deegaanka la keeno ciidamo nabad ilaalin sida Darfur oo kale ama ay dawladda federaalku la wareegto maamulka deegaanka si shacabka loo badbaadiyo. madaxweyne cabdi maxamuud cumar ayaana sheegay in nasiib wanaag nabadgelyada iyo horumarka la isbarbar wado hogaamintii dhalinyarada ahayd ee deegaankuna la qaadatay qorshihii federaalka. wuxuuna madaxweynuhu intaa ku daray in la sii xoojiyo ciidanka booliska deegaanka maadaama ayna ciidamada qaranku aysan kala saari karin qofka xoolo dhaqatada ah iyo hubaysanaha nabadiidka ah. kadibna inta la kordhiyay tirada ciidanka booliska isla markaana la siiyay tababarka booliska ayaa ciidamada booliska gaarka ah la aasaasay. wuxuuna madaxweynuhu sheegay in sharciga lagu aasaasay ciidanka booliska gaarka ah uu yahay xeerka booliska
oo meesha uu ciidanka boolisku qabta shaqooyinka yaryar ee magaalooyinka liyu boolisku maadaama uu nabadiidku joogo duurka wuxuu galaa socdaal dheer oo maalmo iyo bilo qaadanaya si ay nabadiidka u tirtiraan iyagoo isticmaalaya raashinka qalalan sababta ayuuna madaxweynuhu sheegay in loogu bixiyo booliska gaarka ah madaxweyne cabdi maxamuud cumar ayaa gunaanadka hadalkiisa hoosta kaga xariiqay in ciidanka liyu booliska ay abaal ku leeyihiin nabadgelyada Itoobiya oo dhan waxaana madaxweynuhu cadeeyay in abaalmarin laga siiyay dawladda federaalka iyo ciidanka gaashaandhigga guuliha ay soo hooyeen dartood oo haddii liyu boolis jirina sida Kenya iyo wadamada kale ee Afrika ay al-shabaabta u soo gali lahayd gudaha Itoobiya falka ay rabtana ka fulin lahayd balse ciidanka liyu booliska gudaha iyo dibadda Itoobiya uu ka difaacay isla markaana lagu abaalmariyay madaxweynaha ayaana cadeeyay inaysan taasi ka dhignayn in liyu booliska uusan khalad lahayn oo had iyo jeer la qiimeeyo lalana xisaabtamo cidii kamid ah ee khalad gashana sharciga loo waafajiyo liyu boolisku uusan sharciga ka weeyeen marnaba madaxweynaha ayaana hadalkiisa ku soo gunaanaday in ciidanka liyu boolisku ay deegaanka ka cidibtireen dhammaanba ururadii nabadiidka ah ee ka dhaqdhaqaaqi jiray deegaanka ee sida UBA ONAG al-Ittixaad iyo al-Shabaab iyo wixii lamida iyadoo madaxweynuhu hoosta ka xariiqay in liyu boolisku dawladda iyadoo madaxweynuhu hoosta ka xariiqay in liyu booliska deegaanka Soomaalida Itoobiya uu awood ciidan oo dhinaca nabadgelyada iyo dhinaca siyaasadda natiijo lagu dirsada ka keenay isagoo xusay madaxweynuhu inay baal dahaba ku leeyihiin nabadda dalka iyo deegaanka maadaama ay cadawga ka ilaaliyeen xuduudda dheer ee dawladda ilaa Mooyaale isla markaana ay yihiin ciidan naftooda u waayay u dhintay una dhaawacmay iyaga oo nabadgelyada Itoobiya oo dhan ilaalinaya waxaana cadeyn ugu filan ayuu yiri madaxweynuhu in ka badan 6,000 oo carruur ah oo nabadiidku waalidkood laayeen ay ku xareysan yihiin dugsiyada hooyga agoonta madaxweynaha ayaana inta ku daray in maadaama uu liyu boolisku xasiliyay nabadgelyada dalka iyo tan deegaanka Soomaalida Itoobiya ay ka hoos dhasheen cadow badan oo meel ay ka jiraan iyo meel aysan ka jirinba ka magac bixinaya waxaana tusaale noogu filan ayuu madaxweynuhu yiri xasuuq wadareedka ka dhacay bartamaha deegaanka Oromiya inay dadka qaar warbaahinta caalamka u sheegeen in liyu boolis soo weeraray taasoo ah been cad oo sal iyo raatoona lahayn oo ay sameynayaan dadka ka xun shaqooyinka ay qabtaan ciidanka liyu boolisku madaxweynaha ayaana hadalkiisa ku soo xiray in macluul badan iyo gaajo ay ka jirto goobihii xasuuqu ka dhacay inkastoo ay jireen raashino ay geeyeen diyaaradaha qumaatiga u kaca balse aysan ku filayn sidaas darteedna ay dawladda federaalku dadaal ugu jirto